waxaa jirta magaalooyin gobollo caasimadda ku dhow ay daris yihiin waliba sida Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose waxaa ka jira dagaallo goosgoosa oo beelaha halka dega ay dhibaato fara badan dhex taalo qeyladhaantooduna miidiyada iyo meel kastana ay taalo maxay dawladdu ugu sameyn weyday kuwaas dib u heshiisiin intay u gudbayso gobollo kale waa waxa aan ku sheegay charity begins at home jaceelku wuxuu ka bilowdaa guriga soo waxa dawladdan ay waxaas u sameynayaan wax kala maaha dawladdi baa dadka ku dhakanayo dawladdi dadka iskale dawlad maaha waxaan waa maafiye waa habargidir iyo wax la socdo xasan waxa ku shaqeysta habargidir iyo xogaa yaro wadla iyo xogaa yaro si qaala marka dhulkan waa dhul balaaris waxay rabaan dad ay dhacaan way famta marka afgooy shabeellada aad sheegayso dagaalka ka socda wax kala maaha war ima gumaysanaysid haddaan biyo maal ahay war tagaaniga ay gumaysan waay eeyo eegu dhalay ma famta ima gumaysan kartid biyo maal waa dagaalamaya waa dagaalamay habargidirna jawaabteedu uu siiyay nin kasta oo Soomaaliya maanta waa biyo maal nin dhulkiisa loogu tali kara ma jiro marka sababta oo aga aamusan yahay xasan oo afkiisa oo soo oo dhigi karin waxa waay habargidir baa ku tiri hadaa kaada soo ku tooganina ninkan habargidir baa haysato waa nin la haysto waa taa habargidir madaxweynaha ma hanjabi kartaa warma waalanta maxaa cadeynaya markaas professor ya maxaa cadeynaya waxa cadeynayo runta oo sheegi karin markuu dhintay ninkii la yiraahdo muxuu ahaa magaciisa ninkan muxuu ahaa ciidid la shaqeey jiray muxuu ahaa magaciisa ismaanaata markuu dhintay ya waa ku dukaday meeshii uu tagay markaas uu faanay sheekh buu ahaa muslim buu ahaa wala ninka madaxweynaha waxa lagu ogahay dadkiisa inuu runta u sheego ismaanaata tuug buu ahaa ismaanaata waa ninka wadanka bilay qeystay hadda waa dhintay laakiin waa fact hay kan dhintay iska dhaaf mid kan nool shaydaanka shaydaan indha cadde oo la baxay sheekh indha cadde miyamti wadada ka fadhiisto intuu markay uu ku orday markaan ku dhashay